ka joogtaan iyo si walba muuqeen iyo maqalkeena idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah isla markaana aan la yeelan doona dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana jilay filmaan gaaraya ilaa 3 filin groupkan magacooda waa Sam Action waa tahay marka hore waa idiin soo dhaweynaya waxaan ku bilaabayaa gacanteeda midig waa tahay soo dhaw daadriyare telefishinka Soomaali Cable ku soo dhaw marka hore ودوحي طبعا أنت عادي هذا وما سنتين وحنتين تي في أو سودو أنت هذا في عن تايس مركز عادي خالد أنا سودو تلفزيون كالصومالي كابل مركز هراء كسودو وكله هاي كم سنتين سودو أنت قرح بدنا نص ميسين واني قمنا ما سنتين وقتي الميكروفون كان أوديك أيودي واتهاي سودو مركز هراء تلفزيون كالصومالي كابل كسودو إسماعيل هذا هو ما صنت هذه جيو تلفزيون كالصومالي كابل قاب كونك سنة نص دوسين وأنا ذكر ما تعلنا المركز هراء فكر كفيلم كا يا إسكالها أرد فيلم كان رايتين كيسي فيلم كدمبيلة دمبي باريس رايتين أند دايركتور أنا جاك مركي لقى صوته جلينك هو شكله فيلم كأنا جا قبنايو شيك أنا دي فيلم كارد المرة حتى مكود المرة فيلم كوحو كشيء كنا يا وحود حيا كوحبر عدا يصيدو كله dhalinyaro ka mid noqonaya ciidamada dambi baarista dhalinyarada marka howlgalka loo xil saaraa wuxuu noqonayaa inay soo afjiraan koox burcado magaalada qaska hayso howlgalkaas intii ay ku guda jiraan waxay ku weynayaan hal askari oo ka mid ah dadka dabcan loo xil saaro howshaasi ugu dambeyn laakiinse guush ahayd inay soo afjiraan way soo afjarayaan oo dabcan guush ugu dambeys waa ay gaarayaan marka filimka shirkadiis waa intaas inkastoo waxa kale oo filimka ku jira qayb dabcan jacayl ah oo atirishada filimka iyo wiilka ay matalayaan balse wiilka filimka ku matalaya oo la yiraahdo Nuur ka mid ah ciidamada ka mid ah burcadka laakiinse filimku wuxuu yeelayaa qayb dareen ah oo jacayl ah maadaama filimka intiis badan ama rulkiis koobaad uu yahay action laakiin ninkan wuxuu u bedelayaa dabcan jacayl soo waxaan ujeedkan wuxuu yahay in dabcan filimku uu noqdo balance jacaylna laga helo actionna laga helo shakal laga helo filimka marka ma qiso ku yimid mise wax la filayo inay dhacaan horta filimka ugu horeyn haddii aad dadkii daawadan way arki doonaan markuu bilowdo qoraal baa jira oo waareen ah dabcan wargelin ah kama hadlaayo xaalad ka jirta dalka balse waa sheeko anaga aan qorannay isla markaana aan sameyn ujeedkeena wuxuu yahay inaan dabcan aan Soomaalida tusino in aan sameyn karno filimada dambi baarista maadaama hadda dadku inta badan macnaha waxay xiiseeyaan filimada dabcan howlgalada iyo mishinada iyo baarista iyo waxyaabahaas filimada loo xiiseeyaa markii laga soo kuwa jaceelka ah marka filimada in anaga ka Soomaali ahaan aan sameyn karno ayaa filimka ku tijaabinaynay balse sheeko dhab ah oo xaalad dalka taagan ma ahan intaanan halka igu ekay intaanan sii gudagelin sheekada filimkaasi dambi baaris bal marka hore hordhaca filimka nala daawada waan ku salaamay Mr. Khalid waan ka qaaday halka maxad igu balmisaynaa warniyo adiga wad la socotaa aniga waxaan ka rabo maxad isla meermeerinaysaa taasi waa mid ku suurtagelin maxaa kale haysaana saaxiib waxa ii suuragelin aniga ma jiraan waayo waad ogtaa waxaan haystaa lacag aad u fara badan waxaan ku wadana waa ganacsi marka dantaada inaad fiirsato ayaa ku wanaagsan aniga dinteed waan garanayaa adiga dinteed inaad ii sheegto looma baahan marka waxa ku run ganacsigaas inaad iska ilowdo waayo waa waxaan ku suurtagelin adiga saaxiib adiga maskaxda ma la aday aniga muhiimadeyda waa in dhulkaas la oo kaliya mi faantay horta waani salaamay ku soo dhawaada xarunta ciidanka dambi baarista run ahaantii dalkeena waxa uu leeyahay kheyraad aad u fara badan waxaana jira dawlado shisheeye oo doonaya inay macdanta kala baxaan dalkanya waxaa soo dhan waxaa tiin dadka ka hortagi lahaa waxaana la doonayaa in dalkiina iyo dadkiina si fiican uga shaqeysaan haddana waxaan noo bilaaban doonaa howlgal cusub taasoo aynu ku doonayn inaan ku cirib tirno cid walbo dalkanya caqabad ku ah waxaana dhawaan bilaaban doonaa howlahaas annagoo ah ciidanka dambi baarista ayay dawladanya noo xil saarta arrinkaas hadda dhammaantii sida warbixinta igu soo gaartay waxaa tiinad aad u firfircoon waxaad qayb ka tihiin howlgalkanya cusub keena dambeysay xilligii iskoolka waxaad ahayd shakhsi farxad badan run ahaantii maxaa dhacay hadda farxadii kaama muuqatee runtii waqtiga uu isbedelay ay maxaa dhacay weli kama fikirin miya arrintii muddo badan ayaa ka soo wareegatay weli ma iskay fogeynaysaa ma aqaan waxaan ku dhaho arrimahaas idil ayaan cabsi ka qabaa aniga ma aqaan caddeynta ama cunugan xunka ah mid dooran nafsadiisa xabba kuma samayn kartaan haddaba ogaada waryaa taliye ilaa iyo 3 ayaan ku tirinayaa haddii aad go'aankaaga bedel weyso oo ay ku dhacay 3daas
ninkan way u dhammaatay. 3 2 hal jaanis ayaa ku haray 1 sharciga waa ka baxsan doontaan haddaba ogaada. waa tahay waa filaa in aad wax badan ka ogaateen filimka bal markaan aan usoo jeesta daadir yare oo isagu filimka qayb ka ah daadirow ma markii ugu horeyso waa filim jishaa dabcan haa markii ugu horreeyay film aan jiro way jireen waxyaabo kaleeto oo aniga isku tijaabiyey ama fiidiyoyaal kaleeto oo jilliin aan ku muujinayo way jireen laakiin markii ugu horreeyay film heer caalami ah kasoo muuqanayo waa markaan arrin oo la yaab la waaye markii ugu horreysay iyo qaabka jilliinka markii la arkay badanaa si dadka ugu soo falceliyeen ayaa waxay ahayn wax iskeenayo marka way jiraan waxyaabo kaleeto aan sameeyay laakiin filimkii ugu horreeyay heer caalami ah kasoo muuqda waa gartay codka ma codkaagiiba mise waa lagu saaray codka dabcan codkaas waa la codeeyey filimka shirkadda waxay leedahay dad codeeyaal ay leedahay filmaanta codeeyo dadkaas mid kamid ah iyo codeeyey filimkaas yar xasan kaafil dhaa iyo codeeyey saaxiibaana maadaama ay tahay markii kugu horreysay aad filim disho caqabado ma kala kulantay caqabada wallaahi ani ahaantee haddii la dhaho caqabado ma aysan jirin filimkaan iga soo wajahay qaabjiliinkayga wax caqabadaan ma aysan ka imaanin inkastoo directorka oo ahaa ninka mar walba dhiirigelinayay oo markii aan wax qaladana dhahayay tan ma ahayn tanay ahayd asagoo qalad aan ii fahamsiinaynin aadoona nagu dadaalay run ahaantii inaan wax fiican soo saarno asaga aan dhihi karnaa waa xoogga ugu badan oo saaray si aan wax qurxan kusoo saarno adiga maxaad ku jelaysay filimka door waxaa ku lahay laadarnimo aniga iyo markaan qaalid saaxiibkayga filimka isla wadnay oo door laadarnimada iskula wadnay filimkana qaybtaasaan ka qaadanayna laadirka ma howl yara ka waran bal falcelinta dad ka dhalata maadaama laadirka inta badan uu wax qaribo uu wax halleeyo aanan wanaag loogu baranin sidee kula muuqatay markii aad dooranaysa inaad ku jisha laadirnimo doorkaas markaa qaadanayay waxaa la fiirinayay qof walbeeto doorka oo kasoo baxayo marka uu fiiriyay directorka waxaa dhacday doorka laadarnimada inuu dhahay bal adiga aan ku saaro xilkaas adiga yarka ninkan marka maalintii shirka filimka oo bilowga oo aan shirayn waxaa dhacday dadka oo la kala xulay markii doorka laadarnimada la qaatay markaan gurigii tagay dabcan aad baan uga fakeray oo waxaan islahay ma ka baxsan doontaa filimka ma ku saameyn doonaa maxaa dhici doona markii trailerka filimka oo soo baxana waxa aafilaya way dhaceen oo waxaa dhacday in dad badan ay dhahaan malaha tug baa ahayd oo noo qarsaneed waa gartay bal marka hore sidoo kale aan fiirina bal qaybta uu jilaya daadir isla markaana uu ku jilaya laadirnimo tabasho wanaagsan muhiimadda tal ayaa ah adiga nafsadaada ma naga badbaadsan kartaa mise gacanteena ayaad ku dhimanaysaa master daadir looma baahna ninkan inaan dilno waayo waxaan ka dhiganaynaa waddadii aan ku soo ceshan lahayn dhammaan caddeymahii ciidanka naga qaateen waryaa ka soo fiir waryaa idinka sidaa doontaan ii garaaca balse lagama yaabo inaad ka badbaataan gacanta dowladda waryaa weligay maarag nin kaa adag hadda ayaan wacayaa taliyahaaga si oo faylasha naga qaad dib noogu soo celiyo naftaa iga go'aysa meehe ma helaysaan caddeynta amos waryaa taliya mii maqashaa ilmahaaga faktooda ayaa badatay mid ka midan hadda ayaan gacanta ku hayaa haddii aad faylasha inoo soo celi weyso ogow sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku dili doono ninkan aryaada ninkaas xaba gaarsiima kartaan ogaada ninkaas haddii aad wax gaarsidaan inaad iga baxsan doonin oo aan kawan kaga siiyaha waryaa taliya aniga cidna kama naxno cidna uma naxno cidna nagama dambayso dilkan waa caadaysanay ciddii waddadeen soo gashaana dunida ma sii sarnaanayso waa difaantaan filaa marka waxaa ku oran caddeemaha naga isado dhan inaad baabi'isid adiga waa haddii aad rabto ninkan noloshiisa haddaba mid ogow ciidanka dambi baarista mar walba waxay heegan u jiraan in ay difaacaan shacabka soomaaliya ciidankana waxaad tihiin cadowga uu leeyahay dalka lagamana yaabo wax walbaad samaysaan caddeyntaa idinka hay inaan baabi'in haye taliya adiga aad ayaa umad adag tahay haye qaalid amos waryaa mii maqashaana amarkiina waa inaad qaadataa taliyaaga ala hadashaa haddii arabto nafsadaada inay badbaado war iga hor leexo haddii aad karti leedaha bistoolad waad daysatahay madaxaga iga dhufo haddii kal qaylid igala kor tag waryaa taliyaaga nacaska hadalka ugu dambeeya ayaan ku dhahayaa caddeynta ama cunugan xunka ah mid dooran nafsadiisa xaba kuma samayn kartaan haddaba ogaada
waryaa taliye ilaa iyo 3 ayaan kuu tirinayaa haddii aad go'aankaaga bedeli weyso oo ay ku dhacay 3daas ninkan way u dhammaatay 3 2 hal jaanis ayaa kuu haray 1 sharciga waa ka baxsan doontaan haddaba ogaada nuur run ahaantii muddadan kala maqnayn aad ayaan kuugu xiisa gacaliiso ma ogid anigaba sidoo kale run ahaantii waxaan dareemay cidlo fara badan adiga noloshaada hadda maxaa u qorshaysayne inaan guursado miyaa diyaar u tahayne may saas kama wadin laakiin howlo kale ma qabatay sidaa jaamacadda u dhammaysay taada oo kale riska ma soo galaane maya hawshan kulama rabi inaad soo gasho nabiila sidaad adig iigu cabsanay sidoo kale ayaan ana kugu baqayaa soo moogid waan ogahay laakiin hawshan riskigeeda waa iska soo afjarmi doonaa hadda maalin hore askari adinka idinka mid ayaa la dilay marka adiga ilaa kaga xigsanaysa miyaan sugaa war halkan jecel ayaa ka dhacaya war qaalid qoftan waaba qof aan caadi ahayn aniga ayay qiyaanaysaa weliba feelasheeda dhacaysaa nin kalena jecel ayay la matalaysaa gabre sheekada beenta meeshaan ku haysid way soo afjarantay hadda waa inaad ka fikirtaa sidaad ku badbaadi lahayd warniyo sidee wax u wadaa dadkan si uma jeeda inay yihiin lamaan isjecel weliba isku nuuraay maxaa waay waxaad ka sheekaynayso nafteeda miyay u haysaa jaanis badbaadadeeda waan u jeedaa balse runtaa waxay tahay waddada samiir aan marsiine eedan inaan marsiinayno oo aysan marnaba naga badbaadi doonin maxaa dhacay indhahaada wax cabsiya kama muuqdaan ma waxay kula tahay anaga nafsadada inay naga badbaadayso waa balan markii aad noqoto qofkii labaad aan ka dilna ciidankiina in taliyaaga dhaqsi uu ku imaado weliba asagoo cabsi fara badan ay ka muuqato adinka burcad ayaa tihiin waadan dhimanaysaan la socda adiga hawshaan way kaaweyn tahay ha ka hadlin haye nabiila maxaa dhacay geerida hortaada taala kan baqaysid miya adiga aniga waan ogaa labadiin inaa imaanaysaan balse lama baahna inaa imaataan hub la-aan adigoo kelimiya kuu soo qaadanaa ise taliyahayga ayaa imaanaya dibna anaga gacanta nagu dhigaayo afkaaga caana dooro lagu qabay taliyaheeda imaaha mugaasna gacantooda ku dhiga mugdheexa sharciga waa ka badbaadeed laakiin maantaan gacantan ku haya waa maalintaas soo afjarmi lahaydeen horyaan idinkugu sheegay inaad mar uun gacanta soo geli doontaan aryada xad la rogtaan maaha gacmaha kor u taaga adna xad ii firiya qandha erid xuna gacmaha kor u taag soo xasuusta kabtan samiir horey wuxuu idinkugu sheegay maalin maalmaha ka mid inaad soo geli doontaan gacanta ciidanka maantana waad soo gasheen haye ma soconnaa waa tahay daadirow muuqaalkaagii daawadayaasha aad bay u daawadeen kolba haye bal waa gartay laadarka inta badan wuxuu la kulmaa in atooraha maaragtay intuu yimaado marka hore inkastoo uu yahay nin dhiiran oo wax qarbuudaya marka dambe wuxuu noqdaa nin iska maskiin ahoo marka la qabto haye bal xaaladihii ka waran marka lagu qabto lagu fashiliyey atoorihii ku fashiliyey maxaa dareentay dhabahaantii waa xasuustaa markuu filimka dhammaanayay waxaa annaga markan la qabanayay ugu dambeyntii waan dareemaynay wayna jireen kilabyo qaar oo aniga si dhaba u jelay oo dareen dhaba aan muujiyo way jireen xaaladda markaas filimka ku jilayana mar walbeet waxay ka dhigaya xaalad oo la taagan yahay markaas oo dareen dhaba taasaan ku adkeynay wayna dhacday oo markii la qabtay murugo fara badan waa dareemay inay hawshii aan raaxadii iga soo gabagabooday filimkaan ku lahay hawshii inay saalinayn waa dareemay laakiin ugu dambeyntii directorka wax walbeeto naga mahad celiyo wuxuu dhahay meeshaan wixii quruxda badnaa meeshaan ku lahaydeen way dhammaadeen qaybtiinina waa dhammaatay
marka isku daya inaad idinkana u dul qaadatiin wax walbeeto laydinku sameeyo waa ina dhacda taas waana dul qaadanay waa gartay ma jiraan marka mararka qaar in falcelin ay kaa dhalato adigoo jiritaankii ku jiro inaad xanaaqada oo waxyaabaha qaar aad maaragtay la qabsan weyde ma dhacday way dhacaan marmarka qaar inay isla isfaham waa oo imaado laakiin shirkadeenna waxyaabaha oo isfaham waaga annaga uga hortagnaa waxay ahaayeen mar walbeeto hal hiigsiyaa lahayn iyo hal hadaf oo ah inaan wax qurux badan soo saarno weliba annagoo og meesha joogno wadanka soo yahay xaaladda waxyaabaha dhan ayadoo jiraan haddana sida ugu macquulsan inaan wax qurux badan kusoo saarno annagoo nala dhihi doonin hadafkeenna oo ah inaan dadka ilowsiino dadka filmaanta hindida iyo waxyaabahaas halkaas hadafaa lahayn mar walbeeto waan asagana fiiri jirnay ma rajaynaysaa inaad noqoto laadir heer caalami taas waa hamigayga waxaana rajaynayaa inaan maalin maalmaha kamid a magaca soomaaliya anoo matalayo inaan kasoo muuqdo filmaan kaleeto oo aad iyo aad u waaweyn oo dunida dhan ay sugi doonto waa gartay ma jiraan laadiro aad ku dayato allalehay hadday soomaali ahaan lahaayeen soomaalidii hore ama laadiro kaloo heer caalami way jiraan dad aniga ku daydo laakiin macnaha ma ahan qasab ma ahan qofka markaa ku dayanaysid inaa sidii oo asaga wax u samaysid waxaa ku daydaa aniga dhihi karo ma jirin laakiin wax ka qurux badan qaab ka sii wanaagsan mar walbeed ku dadaali jiray inaan sameeyo sida laadirinta ay sameeyaan hadda filmaanta hindida sameeyo qaab ka sii qurux badan inaan sameeyaa rajeeyaa mar walbeed kaas ku dadaala laadiro gooni oo aad allalehay waa daadir ku dayda la isdhihi kara ma jiraan see rabtaa ninka soomaalida ay ku fasiraan badanaa ninkaas filmaantiis aadaa u daawadaa qaabka doornimada laadirnimadana markii oo jilaayo wax dareen dhabo ku muujiya anina mar walba saas ku dadaalo aadani wadaan kula qabto indhihiisana waa leedahay inaan kugu soo laabanayaa Khalidin igu dhiib mikrofoonka waa tahay bal Khalidow soo dhawow hay bal nagu warbixi bal filanka qaybtaad ka lahayd iyo sida aad maaragtay waxyaabaha aad dareemaysay markii aad jiritaan ku guda jirtay filanka ayo badan ani qayb door laadirnimo ku lahay oo negative ah markii ugu horeysan meesha in oo film aan jiro filmo badan oo soo jiray oga experience badan waa lahay marka si qurux badan aadi daadir baa isku dhinac ahaydeen waa gartay hay maxay ahaayeen caqabadihii aad la kulantay inta ay ku guda jirteen jiritaanka filmka wallahi caqabad hadda saa'ide oo dhihi karo waa caqabadaas ay hor imaato filmka maanta ashii karo male maadaama filmo badan hore u soo sameeyay wixii muddo badan kusoo dhex jiray si fiican u aqaano way i fududaayeen sabab inta dadka ku cusub filmada marmar qaarkood xitaa caawinaad siinaya laakiin inta kale wax caqabad ani ahaan ma yeeli jirin aad iyo aad film argudasho la dhaho oo gobolka hiiraan lagu sameeyay magaalada Beledweyne filmkaas sameeyay Soomaalida inta badan hadda saayid u yaqaaniin filmkaas jiray bal aan yara daawanaa filimkaasi argudasho uu Khalid kasoo muuqanaya daawasho wanaagsan wajigaada maanta muxuu lciif leeyahay raggaas markaa la shaqeynayso kuu maceed maanta saaxiibtay afdubtay wayna dileen aniga raggaas lama shaqeeyo sidaas ayay la hadlin waayahay haddii aadan la shaqeyn maxay saaxiibtay kaaga fogaatay raggaas aniga hore shaqey jiray balse haddeertaan hawshooda waan ka baxay markii aan hawshooda iska dhaafay oo aan rabay waddada toosan inaan qaado ayay gacalsidii afdubteen isla markaasna waa ay dileen hadda maxaa ku talaa aan ku dhaqaaqnaa ii sheeg annaga hadda waxaan rabnaa inaan gabadhaas u argudno wiilkaaniyo ahaay waa mid ka mid ah saaxiibadeeda oo hawsha burcadnimo aan isla joojinay saaxiib Khalid dhegeyso annaga awal adiga hawsha naga saaray balse raggaas gabadh way afdubtay wayna dileen hadda muhiimaddu waxay tahay inaan xaqeeda u soo dhicino saaxiibteeda haddii loo argudaayo aniga diyaar ayaan ahay weliba qorshe ayaan hayaa maxay tahayna qorshaad noo heesid raggaas intaysan burcad noqon ayaan asxaab ahayn weliba mid aan soo damcin inuu xiriir la sameeyo ma jiro marka dhammaantood meel ayaan idinkugu balamanaya adinkana ka argutaa waayahayna keen waan bixinaaye filimkan waxaa soo saaray Some Action Films
haye ayaan rag waa balmisay soo maaha haa waan balamiyey waayahay waan sugaynaa haye adiga dhankaas hoosh kacab haye adigana luuqaas ayaan gelayaa ragga markay imaadaan ii baaqoo keliya sheekada waa ay bilaabatay hawshan sideen ayay ku socon doontaa وعلى صاحبتها دلها القف يا كهري waa tahay waa filaad inaad ka wada bogateen filimkaasi argudasho haye ma jireen caqabada maadaama gobol lagu jirayo filimkii muqdisho aadan joogin bulshada hadday ahaan lahaayeen gobolkaasi ku dhaqan iyo maaragtay waxyaaba aad ma jiraan caqabado badan way iska jireen soo magaalo si fiican dad badan oo aqoon haddii aad dhahdo film ku sameynayo wax qurux badan soo caqabado way iska badnaanayaan sida dadka oo bahnaadeen oo kale masa aktaradii oo kale isla jilaysan filmka isfahmi weysan oo aqoon saad isku leedeen magaaladii oo si fiican oo kale ka siin waxyaabo badan oo iska rafaad badan waa jira laakiin alxamdulillah waa ka baxsanay aan u soo laabta filimka dambi baaris waxaa lagu arkaya adigoo bisoolad wadato hadde ninka odayga ahaa Khalid Maxamuud Dilro la islahay waa gartay haye bal filimkaasi ka warbixi bal waxyaabihii aadka kula yaabka badnaa wallahi filimkaas qayb waxa jirto igula yaab bandeed markii aan jilay qaybtan ugu jecelahan waaye waa qaybta markii yarka Samiir ee saaxiibkii aan soo afdoobanayo meesha lagu soo xiraayo xabada lagu dhufanayo arto markii ugu horeysay oo qof in la soo xirxiray dilitaan lagu sameynayo ahayd insha Allah waana si qurux badan uga baxsanay caqabad iska jira xoogaa cabsi barar badan qofkii aad taqaano adane wixii oo adane shaqadii ay tahay laakiin wax saayid ma aysan jirin waa gartay ma jira marka laadiriin aad ku dayato habjiliinkooda alleelahay Khalid laadirkaasu u qaab eg yahay jiliin markii la dhaha la isdhihi karaa dabcan way jiraan laadir inta badan fiirsado oo xoogaa iska shabahano ku daydaa jiro waldo ajay dafgansa oo taqaanaan soo waxaan u daawadaa inaa Soomaalida ajay iloosiyo aan u noqdo ajay soo wax soo saar wax ka qurux badan inaan soo saaro badan aktarnimo ku jira filimada hadaan qaldeenin aktarnimo iyo laadirnimo marba waxa waa doorka asoo aktar iyo haddana door negative ku jilaya oo xanaaq iyo burcad iyo dil iyo waxaas anina film inteeda badan xoogaa qaybta negative-ka ama filmka positive negative-ka ee diidmada ama burcadnimada oo badanahay oo xanaaq ku badan yahay waa gartay dhanka waalidiinta ma jiraan caqabado oo aad kala kulantay waalidiinta horta filmna la jilaa dil dhoo ma malaynayo weerda waxa waayo fiican yahay laakiin ma sha Allah inka weerkeena way nagu faraxsiin waan taageeraan hooyada iyo aabay oo kan islaamay kana aad baa meelsitiin aabay markay filimkaaga daawadaan isla markaana waqtiyada hore waxa jiri jiray haddaba in filmaan hindida Soomaalida filmaan hindida aad u daawataa habjiliinkiini oo filmaantii hindida waliba ka fiican mararka qaar filmaanta qaar ka fiican filmaanta qaarna la mid ah markay arkaan waalidiintii wax ma falcelin ma kala kulantay in ay kugu dhiirigeliyaan in aad hore wax u sii jisho iyo in kale adiga waxaa tahay cunug la dhalay soo waalidka
haddayna ku taageereen wax aa qaban karta ma lahan soo filimka markii la jilaayo wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan sida qarash iyo waxyaabo badan u baahan yahay soo waalidkana haddayna kugu taageersaneen soo muu maleyna inaad samayn karto marka ducadooda iyo garab istaagooda maysan jirin wax la jilo waa gartay waa tahay ninkan waa kugu soo yara laabanaya bal ninkan microfonkii igu dhiib odayga ah hal abuur hal abuure soo dhawow waxaad tahay ninka alleylahay khaalidna waa walaalka adigana filimka ninka curiyaa tahay waa arrin cajiib ah horta ismaaciil filimka markii aad sameynaysid steps badan oo maraa aad iyo horta ugu horreyn markaa sheekada aad diyaarisid waxay kaaga baahan tahay inay heshid dadkii matalaya aad iyo raggan iyo raggii kale aan xushay iyo dumarkii ku jira filimka waxay ahaayeen dabcan dad aan isdhahay waa dadkii u qalmay markii loo soo fiiriyay ninkan filimkii buldoona argudasho ninkii directorka aan sameeyay aniga ahay waa isla baxnaanay ninkan isigo xagga markaan tagayna buldoona aan ku sameynay filimka ma jirin dad kale oo inta nagala baxay laakiinse xagga dad ku diyaarinaan jiro aan ku tababarno markaan meesha tagnay kadib aan u bandhignay aan dhalinyaro raadinay filimkaas kasoo muuqan karo ilaa aan ka helna dadkii dabcan filimkaas sameynayay markii dambaaris aan usoo laabtanay raggan baa xushay ninkan wuxuu ahaa markii ugu horreysay aan kala shaqeynay aan isbaranay argushadaada kadib aan isbaranay sidaasaan ay kala xushay doorka dabcan waa gartay waalidiinta waxa aad kala kulantay caqabado ma jiraan maadaama horta waxyaabaha ugu muhiimsan markaan sound action aniga asaasayay waxyaabaha ugu muhiimsan waxay tahay in qof walba sound action filmka soo saar daawado uu ku qanco horta dhanka ragga caqabad saas dabcan kalama kulmi karaan laakiin dhanka dumarka ayaa waxaa laga yaabaa marka qaar in caqabad ay kala kulmaan sidaas daraaddeed aniga gabadha markii aan filimku dhiibayo ama qaybta ay matalayso waxyaaba waxaa jira dabcan shuruuc shirkadda u degsan oo aan dhahay shuruucdaas ayaa la marayaa sidaas wuxuu soconayaan haddii ay ku qanacsato ay kusoo biiraysaa aniga ujeedo kale intaan ujeedada u gudbin kahor haddii aan shuruucdaas aan soo bandhig waxay tahay gabadha markii filimka ay samaynayso inaysan ku sameynin muuqaal jirkeeda oo waxyar ay ka qaaweyn oo kaleeto sidoo kaleetana aysan dhicin in dabcan wiil filimka aysan sameynaynin dabcan gacmo qaad iyo waxyaaba qaldan ay meesha muuqaalka ay ku sameeyaan ta saddexaad oo ah dabcan in aysan gabadha ku hadlin hadallo macnaa aan anshax ahayn saddexaas waa saddexda ugu muhiimsan oo waalidka dabcan ka cabsada in gabadhiisa ay samaysto ujeedka ugu dambeeyana waxay tahay in gabadhan hadhow aysan ka xishoonin in ay filmkan ayada ay samayso oo ay ku qanacdo waalidkeedna xitaa dabcan ay la daawan karaan sababtoo gabadha haddii aysan muuqaal qaldan samaynin hadal qaldan ku hadlayn jirkeeda aysan qaawanayn oon la ay hadlayso oo sheekeynayso so I think inaysan problem lahayn aad iyo aad waa gartay isku keenida dadka maadaama hal abuurkii wixii aad maaragtay curiso dad jiray u baahan yihiin caqabado ma kala kulantaa in dadkii aad isku keento haddana aad ka dhaadhacsiiso in habkii adiga aad doonaysay loo jila filimka horta caqabad way jirtaa sababtoo ah anaga dhallinyarana haddana is asaasoynaa oo ma jiraan macnaa awood naga sareyso anaga nagu taageerayso horta marka ugu horeyso waxaan raadiyaa dadka u baahan waxa inay sameeyaan sababtoo qofku markuu u baahan waxa inuu sameeyo wuxuu sameynayaa dabcan sidii waxaan uu ku heli lahaa daraaddeed oo wax walba u sameynayaa ugu horreyntaasaan raadiyaa qofka hadduu hamiguu leeyahay haddii aad u sheegtid wuu raacayaa ugu horreyntaasaan raadiyaa midda labaad maxay tahay inaan heli karo qof lagu kalsoonaan karo waayo way adag tahay dabcan hadda filimkan dambaaris wuxuu naga qaatay muddo 6 bilood oo samayntiisa oktoobar 1 ayuu ahaa dabcan haddii aan qaldaneen maalinka ugu horeysa aan shirayna aan filimka sameynaynay oktoobar 2 dabcan wuxuu duubistii ugu horeysaan bilaabnay marka way adag tahay oktoobar ilaa iyo february oo duubisku ekeed in dabcan aad hesho dad intaas kula joogo waxaa laga yaabaa haddii dadka qaar aadan kalsoonaan lahayn oktoobar ay filimku sameeyaan 2020 bisha koowaad inay dhahaan filimka waa joojin waxaan ma samayn karno marka waa inaa heshaa dad aad ku kalsoonaan karto ilaa ay filimka ay kaga dhamaanayaan filimkan dambi baaris muddo intee lagu qaatay jelitaankiisa wuxuu qaatay oktoobar ilaa iyo bisha february bilowgeedii iyo duubista dhammaatay february wixii ka dambeeyay ilaa iyo march xilligaan kusoo gaarayna waxaa qaatay editingkiisa iyo habeentiisa goormay kugu dhalatay inaad filim aad curiso aad samayso walaahi markii laga soo tago kaamirmaannimo iyo muuqaal hagaajin markii laga soo tago inaan wax qoro waxay ugu dhalatay 2019 waxaa jira shakhsiyaad dabcan igu dhiirigeliyay oo dhahay dabcan waa samayn kartaa marka ana sheekada aan diyaariyay ugu horeyn macnaha markaa film sameeya aan noqonaysid waa inaad noqotaa qof filmada xiiseeyo qof iska caadi aan film daawamo film sameey ma noqon karo sababtoo ah hobbigiisa ma ambo aniga hobbigayga ahayd talabaadan dabcan fikirkayga ay si inaan film sameeyo noqdo marka 2019 bilii horeetay ahayd
filim baa qoray sheekaan diyaarsaday waxaan la xiriiray yal la yidhahdo maxamed liwaax jeelaani oo sameeyey film la yidhahdo afduub runtii waa u sheegay sheekada kadib dabcan wuxuu dhahay waa samayn karta sameey ilaa ay maanta asigaas iyo yar kaloo garaadoon la isna saaxiibkayga ah dabcan hadalkii u dhiirigeliyey oo dhahay sameey ilaa ay maanta heerkaan ka imaado waa filimkii ugu horreeyey maya waa filimkii haa markii aan sameynaya filimkii ugu horreeyey dabcan oo ii hirgelay wuxuu ahaa waan isjecel lahaa film yidhahdo filimkaas waxaa la yidhahdaa waan isjecel lahaa filimkii ugu horreeyey oo ii hirgalo waxaa jira short films aan kusoo bilaabaya dabcan train ahaan aan u sameynaya waxana waa train waxana film ahaan aan u sameynaya marka ka magaciisa ma jecel ma lahaa waan isjecel lahay magaciisa waa jecel waan isjecel lahaa waa gartay filimkii ugu horreeyey ee uu curiyey hal abuurkan daada yar bal nala daawada waan ku salaamay gacalisadeeda aan aqoontii lahayn gacalisadaada ma aqaan yaa ahayd adii yaanahay aniga maba aqan qofka ahee aniga waxaan ahay ninka ku guursan lahaa ma naxday inaan naxda waa ku qasban tahay sababtoo ah meelaan aqoon u lahayn ayaa lagu keenay maxaad iga rabtaan walaalayaalo waa idin baryaa iska kaydaaya ah cunuga xumaa ma aragta adiga ku jeclaa markuu meeshaan imaado oo aniga dardar markaas ayaan aniga meeshaa ka baxaysaa inta ka sokaysa ma ka bixaysa weliba bishaaro kale ayaan kuu hayaa ani iyo adiga waan isguursanaynaa see u aragtaana aniga inaa xaas kuu noqdo iska daay hortayda aad taagantaa ayaa dhib igu ah waana ka shalaanaysaa tan khaalid ninka wuu imaaday wow steel boy nabiila wiilashan oo kaleeta aad keeshaa soo maahana waanba ka helay kaali iska arag haye waryaa ma cabsinaysid miya ragka hortaaga ma ujeedid miya waryaa gabadha xaray ka fura ee anigii la hadla soo anigii ma doonayn amar kaali iska arag hadda ayaa imaaday isla markii amar ayaad bixinaysaa waxaad leedahay gabadhan xaraga laga furo nacas adigoo kale uma jawaabi kara ee ujeedkaada ka hadal ujeedkeenna waa inaad dhimataa ninkaanna oo gabadhan guursadaa waayo walaalkeeda ayaa siiyey walaal oo haddii gabadha lagu siimo soo afduubanaysaa muhiimadda ma ahayn gabadhan aan soo afduubto ee muhiimadda waxay ahayd labadeenna is aragna saaxiib si aan kuu dilo adiga walaalkeed inay afduubatin haddii ogaado maxayda ku dhici kara mala socotan adike war adiga dhacdhac badanida walaalkeed iyo aniga saaxiibba ayaan nahay gabadhaanna waa midii saaxiibkay aniga aan ku xidid lahayn waa markii ugu dambeysay aan kula hadlayo gabadha xariga ka fur oo haddii kale maxaa samaynaysaana haddii kale kow ayaan kaa siinayaa waad dhimanaysaa la soco
walaal inaa ku dhaha xitaa uma qalantid laakiinse waxaa tahay shaqsigii hooyo aabbo markay dhinteen kadib isoo garab qabtay balse waxaa ii dambeysay inaad tuugo igu soo dalbato si ay aniga ii afduubtaan waa tahay halkaasi aan ugu imaadno filimkaasi waa tahay waa filimkii kugu horreeyey dadka maxaa kala kulantay bulshada maxaa kala kulantay maadaama ay ahayd filimkii kugu horreeyey horta dadka labay u kala baxaan qofna hamiga koobaad dabcan uu kugu taageeraa qofna markuu ark inaad talent leedahay oo dhaha hore u soco marka filimkaas wuxuu ahaa filimkii aan dhaho dabcan dad fara badan aan ku helay dabcan igu dhiirigeliyo dhaha sameey kamaag sameey hore u soco waa tahay mustaqbalka adiga iyo kooxdaada maxaad rajaynaysaa wallaahi horta ujeed baa jira aan shirkadda Soomaalishin u asaasnay sababtoo ah macnaha Soomaalida wax way matalaan waxna way sameeyaan laakiinse inta badan isku dayaan inay sameeyaan wax shuruucda aflaanta loo maro loo sameeyo marka ujeedkeena ugu weyn ama hamigeena aniga iyo tiimkiina waxay tahay inaan anaga Soomaalida ka dhigno kuwa aflaantooda dabcan ay diiwaangelisan yihiin loo dhaho Soomaali filmadooda waa kuwaana oo aysan noqon sheekadeen riwaayad aysan ku ekaanin aad iyo aad riwaayad waa dhaqan anaga aan leenahay laakiin aflaanta waa waxaan kula tartami karno adduunka kale waa aad iyo aad marka Soomaalidii hore ma jiraan dad aad ku dayataan way jiraan dad aniga ku dayado oo laakiinse waqti xalalkan ma shaqeeyaan waxay ahaan rag la yiraahdo Alfigi Studio waxay ahaan dadkii ugu horreeyay film dabcan codeeyay ama tarjumay isla markaana sidoo kale sameeyay aflaan ayagana sameeyay marka dadkaas aniga ku dayada ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd haddii bulshada ahaan lahayd haddii dad halkan aad ka salaamaysa ama aad ugu mahad celinaysa horta ugu horreyn waxaan soo jeedinaa dabcan in dhanka aflaanta loo soo jeesto sababtoo ujeedkeena anaga wuxuu ahay in aflaanta in anaga Soomaalida ay sameyn karto in dabcan loo soo jeesto oo dadka ay fahmaan marka Soomaalida sidaas ku dhiirgelinaya waxaan rajeynayaa dhalinyaro kale oo fara badan in ayagana dabcan isku dayi doonaan in ay sameeyaan filmo kale oo soo saaraan ama aan wada xiriir ama guuriyada u saartan taas dabcan rajeynaa mahad celinta dhankeeda u soo laabtan ugu horreyn waxa uu mahad celinayaa Maxamed Liwaax Jiilaani oo runtii shaqsigii sheeko bilowgeed ilaa ay maanta ahaa dabcan sameey waa sameyn kartaa qofna adoo macnaha kuma dhiirigelinaa qofna dabcan dhiirigurta ku bilaaba shaqsiga labaadna waa abwaan garaadoon oo dabcan marna haddii aan jabo dhiirigelinay haddii aan dabcan hoosh wadana hore ugu hambaleenay aad iyo waa tahay bal ninkan igu soo dhiib daadir mikrofoonka igu soo dhiib laadarka sanadka waa tahay daadirow hal iyo laba haddii aan ku siiyo gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay waqtigaana haya yaad halkan ugu mahad celinaysaa ama aad ka salaamaysaa horta dhammaan Soomaaliyeed waan salaamayaa waan u mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa TV-ga maanta noo soo booqanaya isagana noo soo ragelay Soomaali Cable aad iyo aad u mahadsantiin dadka shakhsiyaadka gaarka ah haddii aan hal dhaho laga wada gaaro laakiin hal iyo laba haddaan soo kor maro waxaa jiray yar anigana training maraa sameynaayo waxyaabo training ku soo sameeyay way jiray filmaanta oo Faisal Yaash ku baranay nin director yahay jira asagana oo la dhaho indhacade macna Abdulqaadir asagana wuu jiray aad iyo aad ugu mahad celinaya waa ninka mar walba idin gelinay stage-ka maanta aad taaganahay ninkii soo gaarsiiyay waaye sidoo kale to waxa u mahad celinaya Shaafici okay oo ah cameraman asagana magaalada laga yaqaano ah yaraa saaxiibana isku weyn asagana wax badan iga soo qabtay dabcan way jiraan dad kale oo ugu dhiirigeliyay yar jarmalka jooga jiro saaxiibanahay oo xaafadda asagana isla degnaan jirnay oo atam la dhaho wuxuu mar walba isku dayaa erayga oo isoo ugu soo celceliya waxay tahay inta aan noolna wax ku qaban karaa mar haddaan inta waxba ku mataraay waxa laga yaabaa in carrada ii badisee bal intaan noolaa wax iga reebo bal asagana aad u mahad celinaya way jiraan waxyaabo kale oo aniga hamigeyga ah oo jecla inaan mar walba taa sameeyo way jiraan sida maxaa la modelka dharka in xayisiyo waxyaabaas dhan way jiraan laakiin step by step wala gaaraa wadanka heer online wax lagu gato dhammaan Soomaaliyeed waa u mahad celinaya sidoo kale waxa aad iyo aad ugu mahad celinaya hooyada iyo aabahay oo ay hagana ah dadkii inaaba noloshan ku soo biiro adduunkan dhanba dadkii ka dambeeyay ilaahay kasii koo soo waxa ayagana waa mahad celinaya wixii waalidkayga dhamaantood waa mahad celinaya waa tahay anagana waan ku mahad celinaynaa Ismaaciil adina ku mahad celinaa aad iyo aad hay Khalid igu dhiib Khalidow gabadhooda barnaamijka isla soo gaarnay hal iyo laba yaad salaamaysaa dhammaan taageerayaashayda ummadda muslimiinta dhammaan wada salaamaya hal iyo labo lagama gaaro
si qalbi furan aan dhammaan u salaamayaa si gaarna waxaan u salaamayaa familkayga iyo hooyada aabay ugu horeeyaan waan jeclahay in dheeraan rajaynayaa dhammaan taageerayaasheeda on love waa tahay guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa wareysiga gaarka ahaa islamarkaana aan la yeelanaynay dhalinyaro group ah islamarkaana la magac baxday some action films aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa aad baa mahadsantihiin soo dhawaada tan iyo kulantan dambe waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo